Ankaagu hadaafo 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 ankaagu hadaafo reer hebel. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Abdillaahi wuxuu yidhi martigelisay waa run oo waa miiskan aynu hoos fadhino iyo kuraasidan aynu isaga soo horjeedno, laakiin halkan sida caawa laga sheegi doono oo inta iga dambaysa ay uga hadli doonaan waxaan doonaynaa inaynu ka wada baxno. waana sababtaan isu soo taagay in inteena halkan joogtaa ee caawa timi iyo inta dambe ee inagu soo biiri doontaaba inay magacooda iyo wejigooda hor dhigaan in ay ka mid yihiin kulankaa koowaad ee qabyaaladdiidka Somaliland. sababtaan isu soo taagay waxa weeyaan waynu badannahay sidaa la socotaan intiina xarunta ku xidhneed martidiina la joogtay ahayd maanta inay dhooftaa oo rashiid sheekh cabdillaahi uu ka mid yahay, oo uu ka mid yahay sheekh dalmar, uu ka mid yahay siciid jaamac, uu ka mid yahay faarax gaamuute. way soo noqdeen, way nala joogaan caawa. waa khayr inay nala joogaan caawa, waayo iyaguna qayb bay ka yihiin kacdoonkaan isleenahay caawa wuu inoo bilaabmay. maaha kacdoon bilaabmay, waa lainooga horreeyey. cid kasta oo in uu niyadda ummadda lagu haysay wax wanaagsan, in kasta oo ka cararaysay xumaanta aynu qabyaaladdu leedahay, waayo isuma sheegayna maanta qabyaaladdu xumaanta ay leedahay. abwaan ha noqdo, qof kale ha noqdo, ummaddeena inkii damqanaysay mar kasta way soo taagnayd ilaa inta ummaddeenu jirtay. mar kasta qof baa ka dhex dhawaaqayay, oo hadday abwaanaynteena noqoto ama ha noqdo timcadda ama ha noqoto gaariya ama ha noqoto intii kale sare u qaaday codkoodabe, intaaba wuu socday ololahani. maanta waxaynu doonaynaa inuu ololahani noqdo mid yoolkiisu yahay wax inoo qarsooma. waynu ku ballanno, ballan ku kala tagno, aynu samaysanno calendar maalmo leh, sanado leh, saacado leh, ballanqaad leh, inaynu wax isku ogaanayno. waxaynu isku ogaanayno caawa halkan kala tagno baynu halkan caawa isugu nimo. sharaf weyn bay ii tahay, sharaf weyn bay idiin tahay, dhammaan waxaan ku dhahday howlwadada xaruntoo tahay. ta keliya ee aan jeclaan lahaa ee ahayd hadalkaygu ahaa marka hore Somaliland haddii aanay qabyaaladdu jirin, haddii aanay qabyaaladdu dhuuxa Somaliland ka gelin oo cudurina haya sida Cabdillaahi sheegay aanay ahayn, caynkeebay wakaan lahayd. maskaxdeeda way ku sawirantay caynkay wakaan lahayd Somaliland. maskaxdiina way ku sawiran tahay. ta ugu yari waxay ahaan lahayd qofkeenna ceeblaha leh, ceebtiisu way ka muuqan lahayd. qofkeenna wanaaggalana wanaaggiisuu ka muuqan lahaa, isaga oo midna xaqiisa lagu guddoonsiyaynin qabyaalad, midna xaq aanu lahayn oo xumaan uu leeyahay lagu qarinayo qabyaaladda. waa inta ugu yara caawa aynu haysan lahayn haddii ay Somaliland ay ka dawoobi lahayd cudurka qabyaaladda. waan arkaa intiina bedeli karaysaa. dhalinyaradu waa dhalinyarada kacdoonka samaysa. kacdoonkuna waxa weeyaan ka bedela wax la isleeyahay lama bedeli karaayo. onahay qaar ka badan maskaxda jirta malaa la bedeli kari maayo, laakiin hogaanka rasmiga ahi, jiritaanka rasmiga ahi, yaqiinsiga dhalinyaranimo wuxuu ku jiraa in la aamino waxa la isleeyahay maanta suurtagal maaha. ma aha qasab inaynu inagu aragno waxa aynu caawa ku riyoonayno. aynu halkan isugu nimi carruurteenna carruurtoodu inay arkaan waa yool aynu ku xisaabtami karayno. marka waxaan doonayaa inaan idinku soo dhaweeyo kulalkeenna. hadalka waa la qaybsaday oo wax fara badan baynu is odhan doonaa, laakiin ta ugu muhiimsani waxa weeyaan waxa aynu kadib hadallada is odhan doono, waxa aynu inagoo wada joogno dhexdeena halkan iska odhan doono. ee qof kastoo halkan fadhiya iyo intayna daawanaysa iyo intay nagala socota social mediahu ee faraha badan leh ay intooda ku darsan doonaan. ololuhuna uu inoo bilaabi doono. intaasaan idinku salaamaya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ankaagu hadaafo 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 ankaagu hadaafo reer hebel.